قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada warka galcad miidiya qodobada ku daawa doontaan waxa ugu daroon daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bahdilaad kala kulmay Abi Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya xildhibaanada galmudug oo digniin kulul u diray dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo sheegay in dawladdu ay xoojisay howlgallada qorsheysan ee looga hortagayo weerarada al-shabaab ciidamada dawladda oo dhuusan reeb ku dilay nin hubaysan oo weeraray saldhigga booliska degmadaasi Axmed Madow oo ku baaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab ciidamada booliska Hirshabeelle oo maanta dadkii ugu badnaa ku xiray saldhigga booliska magaalada Jowhar kadib dil loo geystay gudoomiye ku-xigeenka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo boqolaal shacab ah oo ka qayb galay kulan lagu duceynayay dadkii 2 sano ka hor lagu laayay Soobe dawladda Mareykanka oo sheegtay inay kordhineysay ciidamadii ka jooga Soomaaliya Mareykanka oo cunna qabateen dhaqaale saaraya dawladda Turkiga hagaag hadii aan ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا قلعة ميديا war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa looga hadlay dhacdadii murugada lahayd oo maanta oo kale ka dhacday isgoyska Soobe ee Muqdisho sanadkii 2017 qoraalka ayaa lagu yiri 14 Oktoobar waa maalin xasuus murugo u leh dadkeena Soomaaliyeed waa maalin aan weynay boqolaal muwaadiniin u taagnaa dib u dhiska iyo horumarka dalkeena waa maalin ay argagixisadu si arxan daran u xasuuqeen boqolaal muwaadiniin oo ku howlanaa nolol maalmeedkooda ayna agoomeeyeen kumanaan caruur ah xafiiska madaxweyne Farmaajo qoraalku ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu xasuusan yahay dareenkii murugada lahaa ee ka dhashay weerarkii bahalnimada ahaa ee al-shabaab ku bartilmaameedsadeen shacabkeena si la mid ah taasi waxa muhiim ah inaan xasuusnaano midnimadii gurmadkii iyo sida dhammaan dadkeena Soomaaliyeed ay ugu wada istaageen wax u qabashada shacabkeenii ay dhibaateeyeen cadawga ayaa lagu raaciyay war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweyne Farmaajo dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xoojisay tan iyo masiibadii isgoyska Soobe ka dhacday howlgallada qorsheysan ee looga hortagayo falalka ammaan darro oo ay soo qorsheeyaan dagaalamayaasha shabaab intaa waxay ku dartay dawladda in ciidamada qalabka sida ay burburiyeen saldhigyada al-shabaab ay ku lahaayeen gobolada dalka kuwa ay ku tilmaameen in laga soo qaadi jiray weerarada ay geystaan al-shabaab sida hadalka loo dhigay ugu dambeyn madaxweyne Farmaajo ayaa xukuumadda Soomaaliya ku amray inay ka warqabto dhammaan dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay mashaqadii ka dhacday isgoyska Soobe maanta oo kale sanadkii 2017 ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa bahdilay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Kenya iyo Itoobiya ayaa kala qaybsaday labada xil ee ugu muhiimsan urur goboleedka IGAD xil dalabkii iyo rabitaankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shaqeyn waayay Kenya ayaa toddobaadkan heshay si rasmi ah oo la wareegtay gudoonka urur goboleedka IGAD kadib shir ay dhawaan madaxda dalalka xubnaha ka ah ururkan ay ku yeesheen Addis Ababa caasimadda Itoobiya kaasi uu ka qayb galay madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa gudoonka IGAD kala wareegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed oo xilkan hayay tan iyo bishii Abriil xilligii xafiiska uu la wareegay jagada gudoonka IGAD ayaa ah mid meerta ah waxaana dalalkii ugu dambeeyay ee maamulayay tan iyo 2008 ay ahaayeen wadamada Kenya iyo Itoobiya hogaamiyaasha IGAD ayaa sidoo kale isku raacay in Itoobiya ay noqoto musharaxa ugu muhiimsan ee xilka xogayaha fulinta oo ah jago kale oo muhiimad gaar ah leh la wareegitaanka Kenya ayaa soo afjaraysa dalabkii Soomaaliya ahaa inay doonayso xilkaas sanadii u dambeeyay Itoobiya Uganda iyo Eritrea ayaa xilkan qabtay min 5 jeer Suudaan oo 8 jeer iyo Kenya oo 11 jeer halka Soomaaliya oo aasaasay ururkan aysan abid gacanta ku dhigin IGAD waxaa la aasaasay 1986 madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaanahan isbahaysi la ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed hase yeeshee Addis Ababa wax taageero ah kuma sin rabitaankiisa gudoonka IGAD waxayna la safatay Kenya
xildhibaan cabdiraxmaan cali ciise oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka galmudug ayaa dowladda soomaaliya uga digay inaysan qalalaasay iyo xasilooni darro siyaasadeed aysan ka abuurin deegaanada galmudug kadib markii khilaaf uu ka dhashay magacaabista guddiga farsamada maamul dhisida galmudug. xildhibaanka ayaa sheegay inuu buuq ay hareeyeen guddiga ay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ay u magacowday galmudug, waxaana isagoo sii hadlayay dowladdu ugu baaqay inaysan galmudug ku celin halkii laga keenay. xaaladda hadda soo korortay waxa weeye keliya in guddigii ay soo magacowday dowladda federaalka ayaa xoogaa waxaad moodaa in aad walaac looga qabo hanaanka iyo habraaca loo maraba in ay runtii dad badan ay salogsan yihiin. marka arrintaas ayaan rabnay in ay dowladda federaalka ay ka fiirsato, runtii tallaabooyinka la qaadayana ay noqoto tallaabooyin dadka iyo deegaankaba runtii wax kusoo kordhin kara tallaabooyin qalad abuuri kara inaysan noqon. marka sidaa daraaddeed marka waxaan leenahay waan ka digaynaa oo aan dowladda federaalka uga digayaa in ay tallaabooyinkaas ay runtii dowladda ay qaadana waxay keeni kartaa qalalaaso hor leh oo deegaanka kusoo kordha marsiinayay. hadda waxaan ka digaynaa oo aan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo shacabka galmudug aan ku wargeliyo oo aan dowladda uga digno in aysan dowladdu meeshii galmudug laga keenay aysan dib dambe ugu celin, aysan qalalaaso abuurin, aysan xasilooni darro abuurin. arrinta sidii la rabay ee bulshada galmudug ay jecel yihiin oo ah in midnimadii iyo wadajirkii iyo wada shaqayntii barteedii lagu soo celiyo. guddigan ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa kasoo horjeestay maamulka ahlu sunna iyo qaar ka mid ah musharaxiinta galmudug kuwa oo dowladdu ku eedeeyay inaysan raalli ka ahayn maamul samaynta galmudug. inta badan guddigan ayaa waxaa la sheegay inay yihiin kuwa ka shaqeeya xafiisyada madaxweynaha, golaha shacabka, xafiiska kheyre iyo wasaaradaha qaar ee xukuumadda Soomaaliya. wararka laga helaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ku sugan saldhigga booliska degmadaasi ay toogteen nin hubaysnaa oo isku dayay inuu galo saldhigga booliska degmadaas. toogashada ninkan hubaysan ayaa timid kadib markii uu isku dayay inuu galo saldhigga, hase yeeshee ay ku amreen inuu istaagay ciidamada ilaalada saldhigga, balse uu rasaas ku furay taasoo keentay inay toogtaan sida ay noo xaqiijiyeen ila deegaanka ah. toogashada ninka hubaysnaa ka hor waxaa wararku ay sheegayaan in israsaaseen daqiiqada socotay ay dhex martay isaga iyo ciidamada booliska ee ku sugan saldhiggaasi, ugu dambeyn ay toogteen. ninkan ay toogteen ciidamada ammaanka ee hubaysnaa ayaa sida warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu ka tirsanaa ilaalada senatar dhegdheer oo ka mid ah senatarada ka soo jeeda galmudug kana tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. markaana haddii aan fiirino Jowhar, wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ayaa sheegayay in ka badan 500 oo ruux lagu xiray saldhigga booliska magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe kadib howlgalo maanta ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka Hirshabeelle xaafada ay ka kooban tahay Jowhar. howlgaladan ayaa yimid kadib markii habeenkii xalay ahaa qarax bambaana lagu weeraray guriga uu magaalada Jowhar ka degan yahay Allaha u naxariistay Maxamed Sugul oo ahaa gudoomiyihii amniga gobolka Shabeellada Dhexe, isaga iyo wiil u dhalana ku geeriyooday qaraxaasi lagu weeraray gurigiisa. ciidamada booliska ayaa baaritaan guri ka sameeyay xaafadda Hanti Wadaag ee Jowhar oo ah halkii xalay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellada Dhexe lagu bartilmaameedsaday. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish oo kumanaan dadweynaha kula hadlayay isgooska Soobe ee magaalada Muqdisho ayaa wuxuu aad uga hadlay masiibadii maanta oo kale 14 Oktoobar. gudoomiyaha Cumar Finish waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoojisay tan iyo masiibadii isgooska Soobe ka dhacday howlgallada qorsheysan ee looga hortagay falalka ammaan darri oo ay qorsheenayaan dagaalamayaasha shabaab. sidoo kale Finish wuxuu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in la shaqeeyaan dowladda Soomaaliya si looga adkaado dagaalamayaasha shabaab. maantay waa maalin qalbigeenna xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay. maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maantay inaan cusugu nimaado fagaaraha hadda aan taagannahay. waxaa laga bartay inaan adkaan karno, waxaa laga bartay in cadowgeenna aan u midowno, waxaa laga bartay cadow aad u weyn, aad iyo aad cadow u weyn. walaalayaal, maanta halgabageennu wuxuu yahay ma ilmayno ee waan aarsannaa. marka ay dhacdo
hagardaamo weyn cadaawad noocaan oo kale ah mid yar iyo mid weynba waxaa loo baahan yahay bulsho Soomaaliyeed oo isku duuban garanaysa cadowgooda iyo shacabkooda kala garanaya oo qoma u soo istaaga badbaadinta shacabkooda. Mareykanka ayaa cunaqabateen dhaqaale saaraya dalka Turkiga. Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in cunaqabateena dhaqaale uu saaro dowladda Turkiga horraanta toddobaadkan. Cunaqabateenta dhaqaale ee Mareykanka ayaa daba socota howlgallada Turkiga uu ka bilaabay waqooyi bari ee dalka Suuriya. Ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkii hore weerar cir iyo dhul ah ku qaaday fadhiisimo ay ku leeyihiin dagaalamayaasha Kurdiyiinta. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ciidamada Mareykanka laga saaray waqooyi bari dalka Syria taas oo ay hogaamiyaasha Kurdiyiinta ku tilmaameen khiyaano uu ku sameeyay Mareykanka. Xogayaha maaliyadda ee dowladda Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu qorsheynayo in cunaqabateen adag uu saaro dhaqaalaha Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga ayaa ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO. Daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.